بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar golaha wasiirada oo ku saabsan Jubbaland goluhu markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu arkay qodobka afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee sareynta dastuurka markii uu arkay qodobka 55aad sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka ee dhisaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha kaasi oo u xil saaran maamulka doorashooyinka dalka iyo maareyntooda heer kasta si loo helo doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan daahfuran isla markaana xor iyo xalaal ah golaha xukuumaddu markii uu arkay qodobka 56aad sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka ee nidaaminaya xilka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha markii goluhu uu arkay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo ay ku jirto dowladda Jubbaland ay ku gaareen magaalada Muqdisho taariikhdii markii ahayd 27kii bishii Maajo 2023 markii uu arkay qodobka 7aad ee nuqulka asalka ah ee dhaqangalka ah ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ee dhigaya in madaxa xukuumadda dowlad goboleedka aan la dooran karin in ka badan 2 muddo xileed golaha isagoo tixraacaya dhaqangelida xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu goluhu tixgeliyay waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran dowladda in ay dalka ay ka hirgeliso nidaam dimuqraadi ah oo dadweynuhu doorasho xor ah oo qof iyo cod ah ay ku doortaan wakiiladooda iyo madaxda hogaaminaysa ee heerarka kala duwan ee golayaasha deegaan dowlad goboleedyada iyo qarankaba waxa golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray qaraarkan soo socda qodobka koowaad sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee Jubbaland golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada